kulanti haboon idil ahaantii masaaxiibayaal ku soo dhawaada channelkeena Shariif Show qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Ukraine iyo Ruushka oo wareeg kale markaasi wada hadal ugu furmay Abu Dhabi iyo waliba sidoo kale Ruushka oo u muuqda waqtigan in goodin xoogan uu u diraya Ukraine maxay tahay waqtigan talaabooyinka ugu culus ee halkaasi lagu wada Ukraine talaabo nooce ay qaaday dhamaadkii sanadkan sidoo kale Abu Dhabi maxay tahay natiijada laga filan karo shirkaasi inuu ka soo baxo ama qorshaha ugu adag ee halkaasi ka imaan karo talaabooyinka culus ilaa haatan la qaaday ayaan u muuqata in qorshe adag ay ka soo gaareen Gaza iyo waliba sidoo kale Israel oo iyana markaasi duqeyn ku dishay in ka badan 200 oo kamid ah Falastiiniyiinta halkaasi ku nool haba u badnaadeen caruur iyo waliba sidoo kale dad maata ah wax ma garata dhibaatooyinka Gaza ayaa u muuqda in markaasi heshiisyadii lagu gaaray mar kale dib loo baxo qodobadaasi waliba wixii kale nagu soo kordhay caalamka iyo Soomaaliya ayaan idinku soo gudbin doonaa channelkeena Shariif Show ku soo bir markaasi hore aan ku bilaabay Ukraine iyo waliba Ruushka ayaa wareegii labaad ee wada hadal ugu furmi doona Abu Dhabi ee wareegan kale oo markaasi wada hadalada ee Mareykanku u dhaxdhaxaadinayo kuwa oo markaasi ku saabsan afjarida dagaalka ee u dhaxeeya Ukraine oo markaasi ka bilaabanaya Abu Dhabi madaxda wafdiga gargaarka ama markaasi gorgortanka Ukraine iyo waliba Rizas Rovers ayaana markaasi bartiisa Ecos ku qoray in yoolka Ukraine uu yahay markaasi helida nabad sharaf leh oo walibana waarta hase yeeshee Kermel Kaas oo isna markaasi ku adkeystay ciidamada Ruushka inay markaasi sii wadi doonaan dagaalka ilaa ay waliba kayf ay ka gaarto go'aan oo markaasi keeni kara dhamaadka dagaalka waqtigan ee labadaasi dal in muddo ah u dhaxeeyay waana sababaha ugu waaweyn ilaa ay haatan go'aan cad looga qaadan waayay Abu Dhabi ayaana si xoogan ugu loolamaya waqtan in dhaxdhaxaadin ballaaran uu ka geysan karo iyadoo garab weyn uu ka helayo dalka Mareykanka oo walibana isku soo dhawaanshaha labadan dal Ukraine iyo waliba Ruushka sidii markaasi xal buuxa ay ugu gaareen wararkii ugu dambeeyay Ukraine waxay si cad u diiday dalabka Ruushka oo ah in markaasi ay wareejiso in ay markaasi ka hortagto aan gobolka Donetsk oo markaasi dhul ay Ruushku ku guuldareysatay oo ayna markaasi 4 sano ee la soo dhaafay dagaal sokeeye ka socday in ka badan 2 milyan oo qof ayaa ku dhintay halkaasi iyadoo dhamaadka sanadkan bilowgiisii dhibaatooyin culus halkaasi ay ka geysteen Ukraine oo waliba Ruushka hadda u muuqata in ay goondin culus ay u dirayso talaadadii saacadun kadib weerar markaasi ay ku qaadeen Ruushka sanadkan oo markaasi u qaado xarumaha waa markaasi tamarta ee Ukraine madaxweynaha Zelensky ayaana markaasi sidoo kale sheegay ama uu sheegay kooxdiisa wax ka bedelka ama inay wax ka bedeli doonaan mowqifkooda ee gorgortanka nabadda ee waliba weerarka oo dhibaatooyin adag halkaasi ka dhaliyay wali kama aysan gaabinayso Ukraine oo goondinta ay kaga imaanayso Ruushka ayuuna u tilmaamaya waqtigan sidii ay gabi ahaanba ugu hortagi lahayd laakiin hubka ugu culus ee labada dhinac ayaan u muuqda waqtigan in ay diyaar garow xoogan ugu jiraan iyadoona markaasi labada dhinac lagu tilmaamayo qorshaha ugu adag ilaa ay haatan talaabo culus oo aynan ka qaadin mana jirto qorshe cad oo wali ay ka gaareen Abu Dhabi ayaa u muuqata waqtigan in ay ku guuleysan lahayn tahay qabanqaabada iyo waliba diyaar garowga shirkaasi ama wada hadalada la isku soo dhaweynay Ukraine iyo Ruush goodinta labadaasi dal saameyn xoogan ku yeelan kara Abu Dhabi iyo waliba sidoo kale Mareykanka waxaana la tilmaamaya in ilaa haatan qorshaha labada dhinac uu yahay kuwa saameyn xoogan ku yeelan kara hadii aynan ka fiirsanin Abu Dhabi talaabadan ay u qaadayso dhaxdhaxaadinta waliba Ruushka iyo waliba Ukraine oo la tilmaamayo in ilaa haatan saameyn xoogan ay ku yeelan karto wada hadalada iyadoo ay u garwadeen ay ka tahay Mareykanka ayaa dhan garab ka siinaya sidii xulufaysiga Ruushka iyo waliba markaasi Ukraine u kala dili lahaa laakiin ma muuqata talaabadeeda oo isaguna ugu hortagi karo markana Gaza Israel waxay iyana markaasi duqeyn ay ku dishay in ka badan 20 qof oo ayna kamid ka yihiin caruur dhowr kamid ah kuwa markaasi la dilay oo la geeyay isbitaalka Nasser ee magaalada koonfurta ee Khan Yunis oo la tilmaamaya in si xoogan loogu dabiibayo saacadihii ugu dambeeyay saacadun kadib xilli halkaasi weerar ay ku qaaday iyadoo markii hore loo madana joojinta ama xabad joojin la kala dhaxdhigay ayaa u muuqata waqtigan in qorshe kale culus ay qaadayso Israel qoosina aan ugu gambanin laynta iyo waliba gumaadka shacabka reer Falastiin mas'uuliyiin ka tirsan isbitaalka Falastiin ayaa sheegay in duqeynta cirka ah Israel habeenkii markaasi ay ku qaaday waqooyiga iyo waliba koonfurta Gaza ayna ku dileen ugu yaraan 20 qof 6 kalena ay markaasi ku dhaawacmeen ama qayb kamid ahna ay
ku dhinteen oona ay ahaayeen caruur tobanaan kalena dhaawacyo culus ka soo gaartay wali mas'uuliyadeeda cid qaadatay ma jirto laakiin waa iska caddahay sida markaasi maqaalka ay ku daabaceen Israa'iil mar walba damcidu wuxuu yahay in gabi ahaanba ay laali karto shacabka Falastiin mas'uuliyiin tan waxay markaasi sheegeen in intaasi ka badan dad ahina ay ku beegsadeen nolosha markaasi ay dhibaatooyin ay ku qabeen muddooyinkii ugu dambeeyay teendooyin ku yaala agagaarka magaalada Gaza magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza Israa'iil ayaa sheegtay in markaasi duqeymaha ay ka bilaabi doonto kadib markii ciidamadeeda rasaas ay ku fureen taasi oo ay ku tilmaantay xadgudub cad oo ay markaasi ay lagu sameeyay xabad joojintii halka askari ay markaasi ku dhaawacmay dhimashada ugu dambeeyay ayaana timi maalmo kadib markii Israa'iil ay dib u furtay marinka Rafah ee u dhaxeeya Gaza iyo waliba sidoo kale Masar ka oo markaasi marinka kaliya ay dadka reer Gaza ay ugu bixi karaan iyagoona markaasi waqtigan si weyn Israa'iil dhibaatooyin culus ugu kulmay dagaalada sokeeyo aan wali har joogta lahayn ayaa u muuqata in mar kale dib ay ugu qarxi karaan Israa'iil oo walibana ku xoogantahay sidii gabi ahaanba ay ku baabi'in lahayd shacabka Falastiiniyiinta Israa'iil ayaa wali markaasi u muuqata in ay muujinayso awoodeeda military ka dhanka ah diyaaradaha duqeymaha fuliya iyo waliba sidoo kale gantaalada ridada dheereeya oo ilaa ay haatan wali qorshaheeda cad aysan markaasi u qaadin haddaba talaabooyinkii xabad joojintaha ayaa u muuqda in aanan wali wax xal ah aysan ka gaarin walow la tilmaamayo qorshaha ugu adag ilaa ay haatan ay ku muujinaydo inuu yahay mid saameyn xoogan ku yeelan karo haddii aynan ka fiirsanin qorshe kasta ama talaabo kasta ay u qaadayso Israa'iil dunida waxay ka muuqataa markan inay ka noqon karto mid cawaaqib xumo ay kala kulmarto yoolkeeda siyaasadeed ayaa u muuqda in dunida inteeda kale markaasi iyadoo garab siinayda ama garab ka helida reer galbeedka qaybo ka mid yihiin Mareykanka iyo waliba soo kale xulufaysiga adag ee waqtigan halkaasi laga tilmaamaya qorshayaasheeda ugu adag iyo waliba doorkooda ugu muhiimsan ilaa haatanna talaabo muhiim ah ay ka geysteen mana jirto qorshe cad oo ilaa hadda markaasi loo diyaariyay ama markaasi looga hortagay marinka Gaza ayaa toddobaad kadib xilli loo furay shacabka Falastiiniyiinta si ugu baxaan deegaanada ay ku dhibaataysan yihiin oo walibana ay u dheer tahay gaajada iyo waliba sidoo kale hooy la'aanta iyadoo dalalkaasina inta badan ay ka dayaan baraf aad u xoogan haddana ay ku socoto duqeymo oo walibana aan kala joogsi lahayn ayaana markan la tilmaamaya in cawaaqib xumo markan ay ku abuuri karto haddii marka la xabad joojintii heshiiska ay wada gaareen dib markaasi loo laalay saameynta iyo waliba sidoo kale dhibaatooyinka culus ay kaga imaan karaan mala jirto ilaa ay hadda war rasmi oo ka soo baxay dawladda oo ay markaasi si cad ay ugu beeninayso qorshaha ay halkaasi ka socday ama markaasi dhimashada tirada dadka halkaasi laga soo warinaya mana jirto wali markaasi wax oo ay si adag markaasi ama meel cad ugu soo istaageen oo uga hadleen qorshe kasta iyo waliba talaabo kasta oo ugu imaanaya doorkooda Israa'iil wali talaabadeeda ay ku taagan tahay leynta iyo waliba baabi'inta dadka reer Falastiiniyiinta وهاجك هذه الأدمات كذا لسه قرتي وتكون مع سنتهاي كنا صوم من نقو جنال كنا شريف شو ناس سندين